falkaas wuu dhacay wuxuu dhacay 22 bishii 11 oo maantay ah abaar 4 saac iyo bar subaxnimo xaafadda Kaambo nin lagu magacaabo Aweys Cabdi Nuur oo marxuum dhintay aba waxa dilay xaaskiisa oo lagu magacaabo jiray Farxiye Ismaaciil haddana waxay gacanta booliiska waxa ku jira gacan ku dhigilay waa la soo qabtay shirkaasna wuu dhacay maxaa sababay marka taliye حبيبي إلا هذا بارتانكو sababta waxa sababay inay xaaskiisu disho ninkeedii baarista ka soo baxaysa hadoo alla idmo laakiin gacanta booliiska ku jira oo wada koowaad aan saarnay waxay ahayd in ciidamada booliisku ka howlgalaan gacan ku dhigilay oo soo qabtaan haddana gacanta booliisku jira sababta dilka keentay maxaa lagu sababay ilaa iyo hadeer baraha bulshada iyo dadku waxay hadlayaan in haweeneyda ninkeeda ay u dishay arrimo maseer maxaa ka jira arintaas runtii ma ka warqabno uma aan garnaqin waxaanu haynaa inay dishay oo cadaysay waxaanu kala haynaa exhibitka ay ku dishay ashyaada ay ku dishay marxuumka asagana ciidanka booliiska gacanta ku haya iyadana way xiran tahay dib baan ka ogaarnaa insha Allah sababta u dishay kullee nin iyo naagas qabade wax isku diri karaan wax iska familka dhexdiisa ka iman karaan waa masayr ama arrimo kale la xiriira falkani goormee uu dhacay goormee soo gaatay idinku ka booliis ahaan falkan wuxuu dhacay xilligii 4 saac iyo bar meelahaas anagu booliis oo maanta uu dhacay hadda oo ay saacadu tahay 2:20 2:19 daqiiqana ciidanka booliisku gacanta ku soo dhigeen intaas u dhaxaysay operation-kaas intaas ciidanka saldhigga booliiska gacanta ku hayay oo operation magaalada ka jiray xaafado badan baa baaritaan tiro badan baa sameynay adigu markii ugu dambeysay ku soo guuleysnaa soo qabanno isbitaalka ayuu marxuumka meedkiisa yaalaa sida la sheegay isagoo dhintay baa meesha la soo gaarsiiyay sidee xogta ku heshay annagu markii dhibku inay dhacday maqalayba oo la kulanayba isagoo nafir ku jira la keenay kadibna isbitaalku ku dhintay kadibna ciidanku waxay bilaabeen inay operation sameeyaan oo maartay sameeyaan inay raadiyaan gacan ku dhiglihii marka hadda dhagaxu saaran yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in la duugo hadoo alla idmo sidoo kale waxaan maartay u tacsiiraya eheladii iyo qaraabadii oo ka dhintay marxuumku oo runtii waxaan leeyahay samir iimaan Allah idinka siiyo waxaan kula dardaarmayaa in ay maartay si degdeg ah u xawaalaan maadaama gacan ku dhigliga gacanta lagu hayo sidoo kale halkaan oo fursad ka faa'iideysanaya shacabka reer Karkaar waxaan uga mahad celinayaa sidii maartay mugga iyo miisaanka lahayd oo ay gacanta nagala geysteen qabashada gacan ku dhiglaha oo gacanta nooga siiyeen sidii horeba u dhici jiray oo maartay ay noola shaqeyn jireen ayagana waxaan u mahad celinayaa deegaanka reer Qardhood iyo dad ku noolba taliye meel ka baxsan magaalada ayaa laga soo qabtay maadaama markii dilkii ay geysatay la sheegay inay gacanta ka baxsatay may xaafadii ku dishay xaafad ahayn baa laga soo qabtay oo aag bedelatay laakiin waa la soo qabtay oo maartay ciidanku way soo qabteen haddana waxa weeye gacanta booliiska ku jira laakiin kama bixin magaalada gudaha la qabtay marka gabadha hadda maxaa lagu sameeyaa waxa la wadaagaynaa hay'adaha garsoorka hadoo alla inoo kale anagu qabtayaal baan nahay fuliyaal baan nahay xeer ilaalinta iyo maxkamadda iyo wadadaas qaadaysa insha Allah waxaan rajaynaynaa in maartay maxkamadda iyo xeer ilaalintu ay wixii go'aan oo waajib ah xaq u leedahay marsiiyaan insha Allah falka noocan oo kala ah markii ugu horeysay baa qarar ka dhaco qof dumar oo wax dila waa markii ugu horeysay inta aan taliye qaybka meeshan ka ahaa laakiin falal kale way dhaceen oo gacanta booliisku jira marka ugu horeysay oo qof dumar ah ay shil u geystay ninkeeda inta qarni joogay waa marka koowaad weey fariintaada ugu dambaysa dadweynaha la wadaagay maxay tahay aad iyo aad dadweynaha ugu mahad celinaya horta awal waxa u mahad celinaya ciidanka booliiska ahaa oo ka howlgalay arintan oo gacanta ku soo dhigay oo hogaaminaya taliyaha saldhigga iyo maartay saraakiisha qaybta booliiska sidoo kale shacabka reer Karkaar waxaan leeyahay aynu iska kaashano wax kasta oo khalkhal deegaan ku keenaya boqolkiiba boqol waxaan uga mahad celinayaa sida ay nagala shaqeeyeen qabashada gacan ku dhigliyaasha ku kan iyo mid ka horeeyaba waxaan rajaynayaa insha Allah wada shaqeynta magaalada inay inta ka sii badato doon leedahay gabadha hadeer xagee way ku sugan tahay xabsiga u gudbisay saldhigga ku xiran tahay ma gabadha waa la soo qabtay oobiga la marsiiyay saldhigga ku xiran tahay insha Allah saacadaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inay mardo garsoorka iyo xeer ilaalinta kadibna loo gudbiyo